sawirkii waan haynaa, loogadii iyo maxaan ku rahay siduu u egyahay waan haynaa, distoorkiisii waan haynaa, wax walba way dhan yihiin. marka hadda inaynu soo bandhigno xaflad soo socota ayaan doonaynaa, laakiin imika hordhac dadka waan siin karaa. ururka waxaanu u bixina hilaac. bismillaahi raxmaan raxiim. daawadayaal kulanti wanaagsan meel kastoo dunida kaga sugantiin, kusoo dhawaada barnaamij kooban oo halkan Home Cable TV xafiiska warqabadka aan kaga qaadi doono waraysi dhinacyo badan taabanaya Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ah dadka aqoon marka ay timaado dunidan casriga Soomaalida kacanka ama ummadda afka Soomaaliga ku hadasha baa leedahay. Professorka aad waxaan ugu mahad celinayaa qofkii ugu yaraa ee taariikhda waraystay interview ka qaaday inaan maanta anigu noqday oo nasiib u helay anigoo Hurriya Axmed Hurriya. barnaamijkeena waxa aad inta badan kaga bogani doontaan socdaalka Professor Axmed Ismaaciil Samatar ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland iyo halka xaalku maraya. Professor Home Cable TV kusoo dhawow, wadanka kusoo dhawow, welcome back kulan. aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo intay la shaqaysaa madaxda Home Cable TV meeshan quruxda badan leh ballaaran aan aad ugu riyaaqay intiinaba waad mahadsantihiin. aad baan ku weydiinayaa aad dadka dhagahooga u yar culaysan wadankii baad soo gashay waa socotaa aqoon-yahankii deegaanadaadi iyo weliba aad fooda isku soo geliseen bulshadu wax weyn bay leeyihiin professorkii dee jaanis badan oo urura furud iyo siyaasadiina way furfurantay adiga hankaa siyaasiga ah iyo howlaha dadku ay kugu turmayaan qalbigaaga ma ku jira? laakiin de anugu waxaan keliday leeyahay maaha oo qof iska ordayo oo kursi baan raadsanaya ma ihi horena maan ahayn imikana ma ihi laakiin dee dadaan wada socono wadanka gudihiisa jooga dibaddiisa jooga oo ujeeddo aan wada leenahay oo ujeeddaduna ay tahay in laga qayb galo tartanada soo socda wadanka imika hor yaalla dee marka dambena keenaya hogaankii iyo howlihii wadanka lagu dhaqaajinayay. hamadaasi way nagu jirtaa, dadkana waan u macnayn doonaa. ma haysaa wax magaca ama wax urura oo imika aad astayseeno idinkeedu ku jiro ood leedihiin annaga halkaasaanu haddaan aqoon-yahanka Professor Ismaaciil Samatar ay isku aragtida yihiin halkaasay wax soo dhigayaan? magacii waan haynaa, sawirkii waan haynaa, loogadii iyo maxaan ku rahay siduu u egyahay waan haynaa, distoorkiisii waan haynaa, wax walba way dhan yihiin. marka hadda inaynu soo bandhigno xaflad soo socota ayaan doonaynaa, laakiin imika hordhac dadka waan siin karaa. ururka waxaanu u bixina hilaac. hilaacna dee waa dadka Soomaalidu caruurta garanaysa iska daa dadka waaweyn ee murtida laho. hilaacu waxa weeye nuur soo baxay oo cirka ay ilaahay ka keenay oo marka adduunyada hilaacaasi uu u muuqdo tusaya inuu onkod ka dambeeyo, onkodkiina inuu ka dambeeyo ufa ka dambayso, ufadiina roob uu ka dambeeyo. dee roobkiina waa noloshii iyo biyuhu noloshii adduunyada maanta abaarta taagan iyaad ka garanaysaa. haddii caawa hilaac halkaa uu ka soo baxo onkodna ku xigo dee raxmaddii baa soo socota ayay noqonaysaa. ururka hilaac baanu u bixinay. labada kelmadood ee ururkaa wada ee hadafka u yihiina waa karti iyo karaamo. kartina waa la yaqaanaa waxay tahay waa farsamo, waa ina taqaano farsamo sida interviewga loo sameeyo, farsamo sida wadan loo maamulo waa ina taqaano. dee karaamaduna waxa weeye qof edabteedii iyo integrity baa ingiriiska la yidhaha, competence and integrity. karti iyo karaamo, edabteedii iyo akhlaaqdeedii leh, iimaankeygii leh inaad hawshaa wado. qabyaalad baa biyo dhigta la yidhaha Somaliland marka misaal loo eego waxyaabaha ururada iyo nidaamka jiro oo dhan ku samaysan yahay. ururka qabyaaladda ma laga bogsanayaa waad leedahay Professor? dee anagu waxaan isku dayaynaa inaan tallaal inaanu keeno, laakiin dee waxay ku xidhan tahay kolba maqaadiirta taagan iyo dee ilaahay gacantiisa ayay ku xidhan tahay. ummaddan ilaahay unbaa daweyn kara. laakiin waxaanu ku dadaalaynaa oo halkanna keenay dadkana aanu doonaynaa inaanu ugu baaqno haddii la helo karti iyo karaamo oo dad wada socdo, qof qura maahe dad wada socda ay keenaan, shaqadiina ay ka dambayso iyo howlaha sida loo qabanayo detailska ay ka dambayso. waxaan qabaa karti iyo karaamo inay noqon karto wax ka jawaaba
bohosha foosha xun lee qabyaaladda la yidhaaha dadka kala jajabisa marka dambena hoy ka dhigata karti la'aan iyo karaamo la'aan. ururka Hilaac hadda siyaasadda Soomaaliland ka qayb galaya urfurashadaas waxa magaciisa iyo yoolkiisa soo saasaad leedahay sidaasan leh Hilaac oo garbaha ay ku sidaan hadaf la yidhaaha karti iyo karaamo. dawladyaal waraysiga inta ka ballaaran oo ka faahfaahsan barnaamijyada dambe ee soo socda ku daawani doontaan Professor Axmed Ismaaciil Samatar ayaa maanta magaalada Hargeysa mar interview aanu la yeelanay waxa uu kaga dhawaaqay urur siyaasadeedka cusub ee Hilaac oo uu ku macneeyay onkadka Hilaac ka dhaxdasha inta badan aad aragteen isagoo samada halka ugu sareysa ka mid dhulka soo wada gaaraya ilayskiisuna cidii mugdiga garanaysa iyo gudgudaha roobba garanaysa sidoo dhulka uu ifiyo wada ogtiin waqtiga ka warrami doona waa ururka Hilaac iyo Professor Axmed Ismaaciil Samatar Hori Axmed Hori Honkebel TV Hargeysa.